maamulka degmada Cadaado ayaa bixiyay booskan oo maanta wasiirka waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore iyo gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Toole ka dhagax dhigeen dhismaha dugsiga farsamada gacanta ee Cadaado ay yeelanayso waxaana dhagax dhigan ku weheliyay gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada Galmudug gudoomiyaha isboortiska Galmudug Xasan Axmed Shirey xubno kale madaxa waxbarashada degmada Cadaado Macallin Sahal ayaa soo dhaweeyay dhagax dhiga dugsigani maanta laga dhagax dhigay magaalada Cadaado isagoo inta ku daray in degmadu u baahneed dugsiga farsamada degmada Cadaado oo runtii aad iyo aad baahi badan bulshada reer Cadaado ay u qabeen waxa marka koowaad iyo mar saddexaad iyo mar labaad baan u mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada oo barnaamijkan soo qaban qaabisay iyo maamulka degmada runtii waxaan rajaynayaa bulshada Cadaado inuu wax badan ka bedeli doono waxyaalo badan oo bulshadu ay niyadda ku hayeen gaar ahaan dhanka farsamadana ay maaragtay ay ka kaabi doonto hadii la yiraahdo mu'assasada waxbarashada iftiin oo hore booskan uga dhistay hool weyn ayaa ku wareejisay maamulka degmada Cadaado waxayna ugu tala gashay in looga faa'iideeyo wixii ku saabsan waxbarashada sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Toole mudane wasiir adiga iyo tiimkaaga waxaan kaga mahadcelinaynaa dhagax dhigan meeshaan dhulkaan waa 200 waaye maamulka degmada ayaa baxshay horay waxa u sameysay mu'assasada iftiin ayaa horay dhulkaan markii hore u gaday ka bacdina maamulka degmada ku wareejiyeen muddo badan gacanteena ku jiray waxay yiraahdeen waxaan ogolnahay in lagu qabto wixii waxbarasho sidaas ayaan ugu sugaynay maanta markii la helay iskuulkii aad iyo aad ayagana ugu mahadcelinayaa cidii gacanta ku haysay dhulkaan maamulka degmada baxshay wuxuuna ku wareejiyay maanta laga bilaabo wasaaradda waxbarashada ugu dambeyn wasiirka waxbarashada dawlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in iskuulkani uu gaar u noqon doono dadka ku shaqeeya farsamada gacanta runtii aadan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan aan ka dhagax dhigno dugsiga farsamada gacanta oo laga hirgelinayo magaalada Cadaado waxaan u aragnaa in runtii uu yahay barnaamij baahi ku salaysan barnaamij ay baahi u qabto degmadaanu goor hore ayaan waxaan u nimid inaan baahiyaha farsamada gacanta aan qiimeeyno dadkii aan la kulanay waxa kamid ahay dadka laga tirada badan yahay ee farsamada gacanta ku shaqeysta ee tumaalada soo saara qalabka ay dadku isticmaalaan oo haamanku ay kamid yihiin oo saxamadu kamid yihiin qayb kamid ah iskuulkan dadkaas ay u gaar ahaan doonta hadii Ilaahay yiraahdo qaybaha kalena waxay noqon doonaan qaybo loo gaar yeelay farsamada gacanta sida tubiistaha iyo korontada iyo wixii la mid ah inay lagu soo saaro oo ay noqoto xirfad sax ah oo si sax ah dadkaas loogu soo